khudbadahan waxay noo socdaan khudbadda gudoomiyaha SYAA Maxamed Ibrahim Ali Ajiib oo noo soo socotaa oo isagoo nooga warrami doona qaabka ay ama uu siminaarku u dhici doono iyo casharada iyo sida loogu talagalay balse markan waxaan ku soo dhaweynayaa mid ka mid ah aqoonyahanka lagu macsuumay waa Cabdulqaadir Xuseen Maalin xubinna ka ah guddiga isku-dubaridka gargaarka Soomaaliyeed sidoo kale waxay noo soo socda goor waa daawo doontaan riwaayad la magac baxday dantaada u toos waa fikrati Cabdullaahi Diiriye Faarax Qasaare waxaana isku soo ururiyay fanaaniinta kale Maxamed Gool Qarboosh Xasan Cagaaran Shibri Shumi iyo Saciid Nuur Buule oo yiraahdo Jimmy Shumi oo isagoo raadinaya laga tartamay taajikii magaalada soo baxay waa tahay markan aan ku soo ururiyay Cabdulqaadir Xuseen Maalin سفيرك سفارة الصومالية أمباسادور محمد علي أمريكا iyo dhammaan marti sharafta kale iyo ururka Som dabaqaadiyay seminaarka halka maalin oo Somali Youth Advocacy Organization dhammaantiin waxaan idin soo dirayaa hambaliyo iyo bogaadin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh salaamka runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan ururka dhalinyarada oo u istaagay inay wacyigeliyaan ay abaabulaan ay isku duwadidaan si wadankii wax looga bedelo anigu waxaan qabaa oo aad iyo aad aan ugu kalsoonahay haddii si daacadnimo ah loo istaago in dhalinyaradu wax badan ay ka bedeli karaan dhalinyaradu waa xoogada wax bedela waxaan xasuustaa markaan yaraa oo talladii miskiinimada soo maran dhigan jirnaanihii maxamed cali amerika waxaana la dhihi jiray waxaad tihiin madaxdii mustaqbalka haddana waxaad muuqatay inaan madaxdii mustaqbalka aan kaalin weyn kaga jidin idinkana beri waxaa balan ah intii nool inaad noqon doontaan dadkii waddanka maamuli lahaa ama hogaamin lahaa ama xubin dhexe ka mid noqon lahaa marka waxaa loo baahan yahay waxyaabaha socdo in wax badan laga bedelo waxaan wax lagu bedeli karaa inaad marka hore aad is ogaataan inaad beri wax bedeli kartaan dhalinyaradu ma aha in la yidhaahdo adduunyaha noolaan isqarxi isdeli ma aha waa inaad wax tartaa ummadda deriskaaga waa inaad wax tartaa asxaabtaada waa inaad wax tartaa waa inaad ku fekertaa nolosha inaad kaalin weyn oo mudlen aad ka qaadan karto marka hadalka inaan kusii fogaado mar rabo aqoonyahan kale iga sii dambeeya waxaan ani ahaan Cabdulqaadir Xuseen Maalin aan garab istaagayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogaan sidii wax u bedeli lahaayeen sidii nabadda looga shaqayn lahaa sidii ammaanka looga shaqayn lahaa sidii si daacadnimo ah waxaan rabaa halkan inaan fursaddan ugu faa'iidaysto heystii wadaniga ahayd ay qaadeen ciyaar jecel iyo shiro jaamac inaan u istaagno aan halkan u sabcino halkaana aan idaacadaha ugu gudbino hambali inay sii wadaan dagaalada ay ku taageerayaan nabadda waa in aan la cabsan dhalinyaradu waa inay istaagto dhalinyaradu waa kuwii shalay xuduudada Soomaaliya taybay ka qaateen haddii la aamuso waxay isku bedelayaan cid walba oo dhalinyaro ah meel alihi meesha joogaan waxaa balan loo ah in la wadagaalo la istaago haddii aadan ficina aan la istaagina waddanku sii xumaan kenya waa laga qaxay meel walbana waa laga qaxay marka waxaa loo baahan yahay in marka hore dalka uu dego waxa wax bedeli karna waa dhalinyarada haddii hogaamiyaha xilladii wax qabanayay haddii culimadii listaha waa lagu fakarayaa ayagana ugu dhowday ee si kala diin u fasirayaan waxaanu leenahay waa waqtigii dhalinyaradu ficilay waxaan qabaa howlgallada Soomaaliyeed